toban dardaaran oo aad u qiimo badan oo ku socoto dadka muslimiinta meel walba ay joogaan, gaar ahaan dadkii bisha Ramadaan soomay. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: ماذا بعد رمضان؟ بشي رمضان ودماتي maxaan sameynaa? waxaa laga yaabaa su-aashaas dad badan inay isweydiiyeen. bishii Ramadaan waa dhammaaday, bishii fadliga, bishii dambi dhaafka, bishii maqfirada, bishii khayrka, bishii laylatul qadr ku jirtay, bishii ducada la aqbalayay, bishii cibaadada waa dhammaatay. maxaa xal ah? maxaan sameynaa? cibaadadii ma dhammaatay? meesha way ku dhammaatay. soonkii iyo sadaqadii iyo acmaashii meesha may ku dhammaadeen mise wax kalaa jiro? su-aalooyinkaas jawaabtoodane maantaan ogaanayna insha Allah tacaala. walaalayaal, waxaan shaki ku jirin bisha Ramadaan inay bilaha kale ka khayr badan tahay, cibaado badan la sameeyo, ilaahaa siiye fadli gooni siiye. waa bishii qur-aanka la soo dejiyey, waa bishii shaytaanka la xiraayey, waa bishii jannada la furaayey, waa bishii albaabada naarta la xiraayey, waa bishii laylatul qadr ku jirta. nacam, fadaa'ishaas dhan waa leedahay, laakiin su-aalaa raba inaan ku weydiiyo, adiga ma bisha Ramadaan caabudaysaa mise ilaaha caabudaysaa? dabcan jawaabtana waxaa waaye aniga ilaahan caabuda oo Ramadaan ma caabudo. sax, arrin wanaagsan waaye. maadaama jawaabtaada ay saas tahay, waxaan rabaa inaan kula wadaago 10 dardaaran oo aad u qiimo badan oo aad ka faa'iidaysanaysid insha Allah tacaala. maanta waxaan sheegaynaa 5, birrina insha Allah waxaan sheegi doonaa, ama birri dambe 5 kale insha Allah tacaala. si fiican u dhageyso dardaarankan, ku camal fal, walaalaha kalene u sii gudbi. khayr Allah ku sii bakhiir noqon. dardaaranka ugu horeeyo aan rabay inaan kula wadaago waxaa waaye taqwa Allah, ilaahi subxaanahu wa tacaala cabsidiisa inaad sii wadid. bisha Ramadaan dadka waxaa arkaysa hees ma dhageysanaayo, been ma sheegaayo, dad ma xamanaayo, dembiga dhan wuu iska ilaalina. maxaa dhacay? wuxuu kula bil Ramadaan ku jira, soonkii ma rabin inaan heliyo. wonderful, maasha Allah, arrin wanaagsan waaye. laakiin waxaan rabaa inaan ku dhaho sii wad arrintaas, sii wad. nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam dardaarankiisa waxaa ka mid ahaa ilaahay ka baq meel walba aad joogtid. ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisana wuu noogu sheegay, wuxuu walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah. haddaba ilaahay ka baq macnihiisa maxaa waaye? ilaahay ka baq macnihiisa waxaa waaye, waa ku soo gaabina, wax kastuu ilaahay ku amray samey, wax kastuu ilaahay kaa reebayna ka reebtoono. arrinta labaad, waxaa iska ilaalisa alguruur, inaad cibaadadaada ku kadsoonaatid, inaad tiraahid aniga bisha Ramadaan dhan waa soomay, inaad tiraahid bisha Ramadaan dhan qiyaamul leyla u istaagnaa, inaad tiraahid 10 u dambeeyey waa ictikaafay, inaad istiraahid 3 mar 10 mar 5 maran qur-aanka dhameeyey, inaad tiraahid aniga si fiicanan u ducoystay, inaad is-cajibisid camalkaa samaysay inuu ku cajibiyo ama aad ku kadsoontid. iska ilaali. sababta ma taqaana? waxa ugu badan oo ibni aadanka burburiyo adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba waysiiyo waa guruurka waaye. inuu qofka naftiisa ku kadsoonaado, camaluu sameeyey ku kadsoonaado, isiraahu waxaan sameeyey wax fiican waaye. ma ogid cibaadadaa samaynaysa ma ilaahay dartiisay ka ahayd mise shubuhaadaa soo galay, riyaa galay? ma ogid. sometimes waxaa laga adoo isdhehaysa wax fiican sameey inay naftaada qof istustus ku gasho, camalkii dhan aa samaysayna bax waaye. marka xataa haddaa ka magan gashid, ma og tahay cibaadadii in lagaa aqbalay iyo in kale? ma ogid. maxaa u kadsoomaysaa marka? cali bin abi aalib radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray, war camalka samayntiisa saa ugu dadaalaysaan, waxaa aad aga sii dadaashaan inaad ku dadaashaan camalkaaga in lagaa aqbalo. camalkii waa sameeyey, laakiin ma liiga aqbalay? ma ogi wallaahi. 10 sana ilaahay caabudaya, ma la aqbalay mise ma la aqbalin? ma ogi. sidaa darteed walaalayaal, camalaa samaysa ha ku kadsoomin. ha isdhihin 30 maalmood waa soomay, rasuulkan wuxuu waa lii dambi dhaafa, ma ogtahay in lagaa aqbalay. ha isdhihin qiyaamul leylaan taagnaay, ma ogtahay in lagaa aqbalay.
quraan intaasaan dhamay war ma ogtahay in lagaa aqbalay maya xataa haddaa intaas samayso waxaa isweydiisaa awooddaada maa ku samaysay mise bicawnin min allah ha ku samaysay mise ilaaha kula garab galay meeqa qofoodoo adigoo kalo intaas samaysay aan samaynin nicmo min allah waaye ilaahay subxaanahu watacaala ku garab galay ilaaha kugu caawiyey ilaaha kugu hanuuniyey waxaa lagaaga baahnaa inaa alxamdulilah tira inaa ku kadsoontid ama isku kibrisid ma ahan siduu ilaahay ka sheekeynayay dadkii badwiga yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum inaa adiga ilaahay ku manashiyo tira ilaa waxaana soo sameeyey inaad tiraahid iska ilaali ana camalkaaga wuu burburinaa intaa keliya ma ahani waxaa laga yaaba wadadaa ku socotidba inaa ka baxdid guruurka qofka wuu burburiyaa naaruuna geeyaa walciyaadu billaah salafka hore waxaa ka sugnaaday inay dhaheen waxaa laga yaabaa qof camal wanaag uu sameeyey inuu naar ku galo markaas wuu ku kadsoon camalkanaan sameeyey saxaabadiisu bannaan ka soo dhigay qofna waxaa laga yaabaa dembi uu sameeyey inuu janno ku galo waa yaabeen suu dembi janno ugu galaa camal waxay dhaheen dembiga qofkan gal markasta uu xasuusanaa ilaahu u toobad keena ilaahayow maalintaasaa dembigaas gali ilaahu iga cafi markastuu toobad keenan ilaahu u dhawaana qofkana camal uu sameeyey maalintaasa waxaan sameeyey inuu ku faano ku kibraa laga yaabo uu naar ku galo iska ilaali marka camalkaaga inaa naar ku gashid khayr allah ku siiyo tan saddexaad ilaahay u mahad celi ilaahay markaad u mahad celiso waxaa tusaysaa ilaahayo wax kasta aan sameeyey aniga ma awoodeeda kuma sameeyey laa xawla lii walaa quwata ilaa bik ilaahayow haddaadan adiga i garabgali lahayn i caawin lahayn i hanuun maanan sameeyeen laka alxamd ilaahayow haddaadan adiga ii kasi lahayn intaan ma soomeen laka alxamd meeqa qofoodoo iga xoog badan oo iga caqli badan oo iga qurxan oo iga cilmi badan aan soomin nicma minka aday nicmad waa ilaahow laka alxamd ilaahow meeqa qofood ayaa salaad usoo kici waaye anigana bisha dhan waa tukaday ilaahow laka alxamd ilaahow meeqa qofood ayaa 10 maalmood ictikaafi waaye anigana waa ictikaafay yaa rabbi laka alxamd shukriya lagaaga baahayay inaa ilaahay u mahad celisid waxaa tidhaah allaahuma laka alxamd calaa nicmati alhidaaya ilaahu waa mahadsan tahay nicmada i siisay oo bisha ramadaan inaan soomo cibaadaysto quraan laka alxamd yaa rab wallaahi hadduusan ilaahay nicmo min allah aysan ahaan lahayn maadan istaagteen maadan soonteen mana samayseen sidaa darteed waxaa laga baahaya marka ashukr siduu ilaahay kugu ziyaadiyo lain shakartum laaziidannakum نعمة إلهي كسي ومهد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد ولك الشكر إلهي نعمة إسيسي لا أحصي ثناء عليك اللهم لا أستطيع أن أحصي نعمك علي فلك الحمد ولك الشكر ذات إلهي إن شاء الله عملك وكو أصحما إلهي سبحانه وتعالى وكوسي زيادنا خيرك إي نعمة إي عبادة إي تقوى الله تن أفراد نوحا الاستغفار إنا إلهي الدم بالدافع ويديستي عمل كاست مركي لصمي وحا وناكسن إنا استغفار لتمادين فضائل الاستغفار حدا حسوسة وكسو شيكين رمضان ككهر يوتيوب هداقي شد وحيلا ليست لنا إلى بري ليست مركاتي استغفار تي فضائل شيسة استغفار عمل كاست في صلاة مركي لتكذو السلام عليكم مركات راهن وحا أوغوه الرئيو سميني محاوي استغفر الله إله سبحانه وتعالى دم بدافو يديسا نيسا مركي حج لنا مايو maxaa loo baahan yahay qofka inuu ilaahay istighfaar weydiisto dambi dhaaf weydiisto camal weyn rukni min arkaan alislaam uu soo dhameeyay istighfaar sameeyaa liiri salaadii ugu horreysay sameeyay istighfaar sameeyaa liiri sababta ma taqaanaa sababta waxay tahay camalku ilaahay kuu diray say tahay ma u samaysay ma ogid ibn aadana taqsiira leedahay waa gaabinaysaa waxaa leedahay ilaahayow camalkan saa rabtay umaanan samaynin وحي تقصير إيجا دنبي داف إله هدو استسطس يركو جري إله إيجا دنبي داف إله يو هدان قابين سمي إله إيجا دنبي داف وحا إله ويدي سنة مركا استغفارا وحا لذا إله يو إي دنبي داف مركا رمضان كبحث استغفارتا إي توبة بضي اللهم استغفر الله استغفارتا أفكار مركزتا كبضي استغفارتا سيدي ذي بفضل أولي هذا حيبا عرب هذا مركزتا حقوقي ينادو هميجي إي والولكي إي مروك حتى والا قاعدة تنشنا صون لحظة مع الموت بش شوال رمضان كمركا كبح حديد صونك أنت سكون معكو وحلو بها هي مركا إنا بالله وديت صونكي سنة ضاها
نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوير قفكي صوم بشهر رمضان من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كدبنا راعي الإحمال موت بشهر شوال كمده فكأنما صام الدهر كله وحو لمد يقف سنة كدن صومي. الله أكبر يا الله نعمة إلهي فيل ولا ليالو بالإحمال موضع صومتي لكن إلهي نعمة دي سوى حاكمت بشي إنو كو حسابه 10 بلون لحظة مع الموضة إنو كو رفت 10 لحظة مع الموضة والله بلون إذا درتيد وحا لمد نقونيسا قف صومي سنة كدن سؤال مركا أديقو سقال إيا لباتا مع الموت صومتي أما صد مع الموت صومتي لح مع الموت لبمو كو نقونا أديق اسويدي جوابته وحي نقونيسا مي لكن ودي بدين أنا كو شيئا بكاس لحظة مع الموت وادتك أنا أفرسا ننفك أمبا كسو بيحي كرو أما قبر حروب بدن وعقل له أمبا كسو بيحي كرتو لحظة مع الموت بشي شوال وحا أقوه ريسدو إلهي تسيس تنقطو إلهي هو أصور دمي واجبكي سنة واكو بالله لحظة مع الموت واكو بالله بالنبي تس إلهي وحرد إلهي لك الحمد وإيسو كان باسم هذا على لحظة مع الموت حتى بالله إلهي إقرب قبل وحا إنو لمن شن أرين كرو آد مهمو وآد قيمة بدن لو باهي إنا سميسي شنتاس أرنا دارتنا أوقاتي وإنو حلقة سو صعتي إن شاء الله تعالى وقت مربين كوبو ديري إلى حلقة سو صعتي اللي جارو وحان كاعد سنة إنا دقيستي كعمل فشيد ولا لها كلاني وسيكت بست إن شاء الله وقدم بينتي الله سبحانه وتعالى وحاويدي سنين إنو نقدر دتك بشهر رمضان لودن بدافي نار تلقى حري ليلة القدر اللوافجي آمين لها جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم dhageyso ku camal fal walaalaha kale u sii gudbi waa inuu xalaqada soo socota iyo 5 arrin oo muhiim ah. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله